السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالو حين موقال كالكو ايغي دونا نوع الرقة اي دمركو آدك اوغا هلال waxaan ku hayaa 6 qodob oo ka dhigaya inaad noqoto ragga midka dumarku ay aadka u jecel yihiin. haddii aad aragtay wiil inta gabadh uu jecel xad dhaaf u qaaday wax walba oo ay rabtana u sameyn jiray haddana ay meel cidla ah kaga dhaqaaqday kana doorbiday mid kale oo laga yaabo inuusan u hayn kalgacayl la mida kii hore, waxaan ku hayaa qodobo muhiim ah oo ka saacidaya inaad noqoto nooca ragga oo ay dumarku aadka u jecel yihiin. waa 6 talaabadood oo si dhaqso ah aad ugu noqon karto nooca ragga dumarku ay aadka uga daba dhacaan. qodobka koowaad, wax yar hadal. dumarku waxay aad u jecel yihiin ragga aadka u hadalka gaaban. ragga midka aamuslaanta badan oo marka uu hadlayana hadalkiisa uu yahay mid uu aad u kooban yahay oo uu xigmadeysan yahay waxay ka dhigaysaa in uu yahay dumarka midka ay aadka u jecel yihiin. qodobka labaad, isku kalsoonow. dumarku waxay aad u jecel yihiin ragga midka lafsad ahaan isku kalsoon, midka ka taqalusa walwalka iyo walbahaarka. ficilada aad samaynayso ka turjumaan kalsoonidaada. u hadal una soco si kalsooni ay ku dheehal tahay adiga oo go'aanada aad gaarayso aad ugu kalsooni qaba, waayo dumarku waxay jecel yihiin ragga kuwa aadka go'aanadooda ugu kalsoon. qodobka saddexaad, noqo garabkeeda. dumarku waxay aad u jecel yihiin ragga midka garabkeeda taagan mar kasta oo ay dhibaato la soo daristo. ragga midka isku hoole in marka ay hadlayso si fiican uu u dhageysto uuna u dhuuxo hadalkeeda, taasi oo soo dadejin karta in marka dambe ay aaminto isla markaana ay noqoto mid ay talo weydiisato mar kasta oo ay xaalad la soo gudboonaato. 4 nin adag noqo. in aad lil adag noqoto waa mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah ee ku sahlaya in aad noqoto ninka ay dumarku jecel yihiin. inaad lil adag noqoto macnaheedu maaha inaad murqo waaweyn yeelato, maadaama xitaa dumarku ay aadka uga helaan ragga murqaha lahi, balse waa inaad noqotaa mid muuqaal ahaan iyo dareen ahaanba aad u adag. mar kasta ha ka caban noloshaada, ha iska dhigin mid daciif ah, hana iska dhigin mid u muuqda in noloshu ay aad uga adag tahay. qodobka 5aad, bogaadi. dhammaan bini'aadamka oo idil waxay aad u jecel yihiin in maqalka dhagahoodu ay ku soo dhacaan hambalyeelta iyo bogaadinta marka howl qofku uu qabto. mar kasta oo aad dumarku ku badisaa ammaanta waxay ka dhigan tahay ilaa ku sii dhowaanayso in aad noqotaa mid ay ka heshay. u sheeg inaad ku faraxsan tahay wakhtiga aad la qaadatid. ula sheeg in ay aad u qurux badan tahay, balse ha ka badbadin ammaanta, haddii kale waxay kuu fahmaysaa inaad tahay qof iska hadla oo keliya. qodobka 6aad, mararka qaar dib u istaag. mararka qaar u sheeg inaad mashquulsan tahay oo aad howl ku mashquulsan tahay, hadhowna aad soo wici doonto. xitaa haddii fariimo aad ku sheekaysan jirteen oo aad hore uga jawaabi jirtay, isku day in daqiiqado aad dib u dhigto adiga oo mashquul iyo shaqo adag sheeganaya. ha noqon mid wax kasta oo gabadha tiraahdo ku raaca khilaaf marka aad aaminsan tahay inaad saxal tahay. maya dheh adiga oo wax sharaxaad ah aanan bixin. u istaag waxa aad xaqa u leedahay, warkaaguna ha caddaado. noqo mid qowl leh, hadalkiisana ku taagan. mar walba luuca ragga dumarku ay ka helaan ayaa ah kuwa go'aanka leh, hadalkoodana ku dhaqaaqa. ogow, dumarku kama helaan ragga midka iyadu ay maamusho oo had iyo goorba ka daba carara. inaad qof walba ula dhaqanto adiga oo raacaya farsamooyinkan waxay kaa dhigi kartaa mid asxaabtiisa ay aad u yar tahay. sidaa daraaddeed waxa ugu fiican aad samayn kartaa waa inaad barato wakhtiga ugu habboon ee aad isticmaasho farsamooyinkan. haddaba daawada, haddii aad ka heshay muuqaalkan sii sheergaray oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.